waxay jeclaadaan janna loogu baaqaa indhu waxay jeclaadaan qurux inay u jeedaan hadal waxaad jeclaataa inuu xibin ku jooga asxaabta ku xidhan youtube-kayga maanta muuqaal aad iyo aad u qurux badan ayaa ka soo duurin doonaa mid ka mid ah suuqaqa ku yaala xaafadan xaafadan waxaa la dhahaa Kimironko. markaa suuqaasaan tegi doonaa, suuqaasaan ka soo duubi doonaa qaybihiisa kala duwan iyo waxa lagu hayo suuqa. markaa iminka waa xaafadii baan ka soo baxay, xaafadii baan sii dhex marayaa. markaa xaggana waa xaafadda Kimironko, waa meesha waddadeedu saa u quruxda badan tahay. markaa Kigali saasaa waddooyinka looga shaqeeyaa. aroorta hore ayaa xitaa hadday caleenta geeduhu daadato la guraa. waa meel ilaahay barakeeyey, ilaahay waddankeena saa haynoogu barakeeyo, haynoogu nimceeye. waa meel ilaahay barakeeyo, roobku mar walba da'o, sababtaasay mar walba meeshuna gariin u tahay oo kama qaadaba. markaa nimankani meeshu marku saas kaga rooban tahay ee beerahay ka faa'iidaystaan dhulka oo waxay kaga dhigaan cid kale waxaa ka barida baahida ama goyso ay kaga dhigaan. markaa wata meeshu saas u egto oo xaafadaha dhexdeeda meeshaanu marana ma aha townkii, oo meesha aad kuu quruxda badan leh. markaa muuqaalkayga markaanu gaadhno suuqa ayaan muuqaalka halkaa idinku soo duubi doonaa. muuqaal aad u qurux badan idinku waxaan sii dhex socnaa xaafadihii. wakaa la socod wanaagsan. markaa asxaabta sidaad weli arkaysaan waxaanu kusii guda jirnaa waddadayadii. markaa waddadani waa waddada tagta suuqanu doonayna inuu tagno Kimironko maarka suuqa la yidhaahdo ayayna geynaysaa, aad way nagu ridaysaa. markaa waddadii baan weli sii haynaa oo waanu sii soconnaa. markaa waxaan iska jeclaystay in waddadana in yaroo muuqaala ka sii duubo oo aan idin tuso meeshu sida u eg tahay waddooyinka Kigali. wataa waa Kigali waxay ku jirtaa dee caasimadaha ugu keliinsan waa keliyin. wakaa wallaahi baanay ku arkay maankudha xashiish meeliya oo sidaas saasay meeshu mar walba kelin u tahay. markaa dadka qaar baaba ku soo weydiinaya oo ku odhanaya niyokaay dadka ruwaanda jooga iyo ruwaanda iyo dadka ku nool iyo dadka waddanka u dhashay waxaan weydiinaya sida caasimadda keliin mar walba ugu ilaaliyaan ay keliin u ahaato. niyo inkoo kale aroortii dad baa ku qoranba inay wixii ay xashiisha arkaan oo ay bilicda magaalada ilaaliyaan. markaa weliba halkan waa xaafad, sidaasay xaafad tahay oo aan ahayn iminka townkii oo kale. iminka sidaad arkaysaan halkan taaganaya waxa weeyaan waa kadinkii afaafkii laga geliyay suuqa Kimironko. markaa halkan ka dambaysa saa arkaysaa waxaa taagan mootooyin baa taagan. markaa waddankan transportationkiisa inta badan waxa la raaco waa laba shay, waa mooto iyo baska. markaa basku wuxuu tagaa meel dheer, markuu xaafad tagayo ayuunbaad baska raacaysa. laakiin meelaha iska dhadhow oo kale mootadaasa qaadansa. markaa mootooyinka halkan oo kale waxay u taagan yihiin qofkii ka soo baxo oo kale inay muxuu ahaaye dee qaadaan oo dee nin walba quudkiisu meeshuu taagan yahay. markaa halkan waa afaafkii hore ee Kimironko. markaa iminka waxaan sii geli doonaa suuqa Kimironko. markaa waxaan soo tusi doonaa qaybihiisa kala duwan ee suuqa. markaa anigaa iminkaan sii gelayaa. suuqu waa suuq aad u ballaaran. markaa waxaan soo tusi doonaa qaybihiisa kala duwan uu suuqu leeyahay. markaa xaggan iminkaan maraya xagga iga dambaysa waxaa lagu iibiyaa waa hadday hilib noqoto, hadday noqoto khudradii xaggaasaa lagu iibiyaa. laakiin dhinacan kale aan kusii socdo waxaa lagu iibiyaa bagaashka kala duwan oo iminka xagga aan marayo kale waxaa lagu iibinayaa muxuu ahaaye khudradii. markaa waddanku waa waddan aad u rooban, khudrad kale noocaa ka soo baxda. markaa khudrada cajiiba waddanka ka soo baxa. markaa khudrad kasta halkan aad ka helaysa. suuquna waa suuqa xaafadan ugu weyn, waa suuq aad iyo aad u ballaaran. markaa iminka dhinacan aan socdo waa qayb ka mida. markaa qaybaha kalena waan idin soo tusi doonaa insha allah. la socod wanaagsan. markaa dadkan markay arkaan dee qof ajaanadii wax duubanay way ku soo wada eegayaano
bishaas uma ku hayeen xaggaasoo kale waxaa khudrad taala wada arkaysa ilaahay baa waddanka khudrad hodan ku yahay sidaad arkaysaan horey bay kusii sheegay markaa marketka waxaa geyn doonaa qaybihiisa kala duwan markaa qaybo kala duwan buu leeyahay qaybta ninka waa qaybta khudradda halkaa waxaa yaalla sidaad arkaysaan oo kale waxaa yaalla pineapple-kii baa yaalla muuskii cambalafkii khudrad fara badan baa meesha taala markaa waddan rooban oo aad badda khudradda iyo hodan ku yahay markaa ciidoodna ciidaa kale ka duwanta waa ciida wax ka soo baxaan oo wax laga beeran karo oo jilicsan sababtooda waxaad ka arkaysaa khudradda kala noocaa dacamoodu siduu waaweyn yahay baad arkaysaa isagoo halkaa saaran markaa waxaa joogaa qaybtii khudradda qaybaha kalena khudraddu way badan tahay marka xaggan waxaa lagu iibiyaa khudradda ayaa xagga lagu hayaa marka qaybaha kalena waa idin doonaa ee la socod wanaagsan maadaad fuusadu section kana iminkaas sidaad arkaysaan waxaan marayaa suuqa bartankiisii waxaa soo khudrada qaybtii khudraddan weli ku dhex jira markaa suuqa uu weyn yahay qaybihiisa kala duwan ayaan soo mari doonaa markaa la socod wanaagsan oo iminka waxaan maanta idin dhex marin doonaa suuqa Kimironko waa suuqa ugu weyn Rwanda waa suuq aad iyo aad u qurux badan xaggan waxaa lagu iibiyaa agabkii kale ee haddaad agabkii guryahoo dhan baa qaybtan lagu iibiyaa markaa qaybtan aan marayo waa qaybtii guryaha markaa wax walba halkan aad ka helaysaa oo qaybtan waa qaybta waddada ku sii jeeda markaa dhinaca kale aan ka soo galay markii hore qaybtan waa qaybta iyadoo ku sii jeeda waddada markaa waddada ku sii jeeda markaa iminka waan ka baxay waan ku soo noqonayaa dhinaca kale aan kaga soo noqonayaa dhinaca kalena waa idinka tusayaa la socod wanaagsan suuqu waa suuq aad iyo aad u weyn oo wax walba waad ka helaysaa meel shaa iyada xaggaa kabihii baa lagu tolayaa wax walba meesha way yaallaan markaasaan idiin sheegay waddanka transportationkiisu waa motorcycle-ka idinka arkay wax halkaa mooto taagan waa motorcycle-kaasaa la raacaa marka motorcycle-kaas waa transportation kaliya waddanka ka shaqeeya inta badan basku wuxuu tagaa gobolka gobol marka halkan waxaasoo transportation waxay u taagan yihiin inay dad u qaadaan sida arkaysaan xaggaa waxa yaalla waxaasoo khudrada markaa xaggan waa qaybtii khudaarta khudradda ninkaas uu goynaya markaa ninkaas wuxuu naga codsaday inaanan wejigiisa tusin kasoo dhex muuqan kamarada markaa khudraddaas ku goynaya meesha khudradda aad u badan khudraddan markaa waxaa lagu sameeya iyada cuntada ayaa lagu daraa waa khudrad xagga kamsaraana ku jirta bacdaa laakiin khudraddan aanu hore umaan arag What's the name of this? What's the name of this? This is cassava leaves. It's used for what? We used it when we are going to making soap. 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 So are you using the leaves or this? Sorry? Are you using the leaves to make a soap, or are you using the stick? We're using small leaf without putting some in the stick. marka baashan waxa lagu sameeyaa maraqa marka caleentaas ayaa maraqa lagu sameeyaa laakiin qoryaha iyada waa la iska tuuraa waa sida caleentaas ayaa halkan lagu riqay marka la riqo ayaa bacbaa lagu gurayaa marka bacdaa lagu guro ayaa siibada lagu sameystaa marka waa sida macnaheedu marka baashaasaa lagu riqaa waa yar iminka sida arkaysaa suuqa bartankiisa ayaa weli ku jiraa markaa xaggan waxa yaalla kalluun markaa niyo aanu horan waan aragin laakiin kalluun yaryar weeyaan intaasuu laaleegi haddaan kamarada idinku dhoweeyo waa kalluunka aadka u yaryarla markaa kalluunkan waddankana laga keenaa kalluunka waa kalluunka aadka u yaryar xoogiis sidaad arkaysaanba wakaa kalluunka waa kalluunka aadka u yaryar
marka waxa la iibiyaa kiilo baa la iibiyaa kiilogaasaa lagu saaraya kiilogaasaa lagu saaraya marka adhina gudi kiilogaasaa lagu saaraya marka waa kalluun aad u yaryar waa kalluunkaas aad u macaan kalluun marka halkan iminka dul taaganahay waa halkaada kasta waxa ka muuqda tibti iyo mooyaha marka tibti iyo mooyaha waynu naqaanayo Soomaalidu tibti iyo mooyaha way taqaanaa niyo halkan waxa yaala sida arkaysaan maqaacadaha dee ninkii soo gaaray baa garanaya marka maqaacadaha waa maqaacadii xeeran iyo fandaalkii waa fandaalkii marka fandaalkii ayaa iminka nimankani hayaan oo iyagu weli dhirta isticmaalaan ka soo qoraan marka waa kuwa halkaana waxa yaala waa tibtiiba iyagu taala halkaa tibtii oo qoran marka tibta waa geedihii tibta lagu tuman jiray marka waa kuwa weli nimankani dhaqankii ay sii hayaan marka dhaqanka afrikaankuna waa wada sheergareeyaan dhaqanka oo kuwa waxaasoo dhan waa maqaacadihii iyaguna xaggan kalena iyaguna waxa yaalan kuwa waa mooye ninkii garanayo baa garanaya mooyayaashii baa yaala oo kuwa halkana waxa yaala waa maqaacadihii waa fandaalkii oo waaweyn baa yaala waxa loogu talagalay ducooyinka marka midii malaha waa qaar waaweyn baa yaala halkan aad u waaweyn waxa loogu talagalay ducooyinka iyo waxa loogu talagalay imika muuqaalkayagii waanu soo dhammaynay marka suuqa ayaanu ka sii baxanaa marka muuqaalkayaga maanta halkaas ayuu ku eegaya imika waxaa ku beegan tahay 5 iyo barkii weeye markaa meesha 6 fiidnimadaba 6 haddii gaadhaba albaabada la iskugu laabaa waddanka suuqiisuma sii furnaado 6 la xidhaa marka muuqaalkaygii waanu soo gebagabaynaynaa imikana waanu ka sii baxanaa marka waxaanu leenahay la socod wanaagsan suuqa maanta wanaga idin soo dhex marinay meel walba inaad ka bogan doontaan ayaan rajaynaynaa imikana wanigaa ka sii baxaya oo kaa suuqa iga dambeeya la socod wanaagsan baan leenahay muuqaalkayga halkaas aanu taagannahay ayaanu ku soo xidhannaa maanta la socod wanaagsan